وعن wanaagsan idil ahaantiin ba meel kasto aad dunida ka joogtaan waan uga caawin nurshira ah saaxiibayaal maanta waxaynu dul istaagi doonaa qodob ku saabsan maxaa Itoobiya ay u soo laba kaclaysaa haatan siyaasadda Soomaaliyana ay lugaha iyo madaxa ula soo gashay waxaad arkayseen dhaqdhaqaaq dhinaca Itoobiya ama siyaasadeed iyo military maxaa isbedelay haddii dalkii uu galay doorasho isla markaana ay tahay madax cusub iyo madaxweyne cusub waxaynu eegi doonaa bal saameynta ugu horeysa ee maamulka koonfur galbeed ay Itoobiya ku leedahay annagoo u gudbi doona maamulada kale maalin ka dambaysa soo qaadan doona habka ay wada shaqeeyaan Itoobiya maamuladaasi iyo siyaasiyiinta Soomaalida habka ay wada dhaqmaan ugu horeyn waxa aan ku soo qaadan doonaa maamulka koonfur galbeed saameyn noocee ah bay Itoobiya ku leeyihiin hoggaanka maamulka koonfur galbeed waa su'aal isweydiin leh tan iyo markii la dhisay maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya dabayaaqadii 2014 waxaa soo baxayay warar sheegaya in maamulkaasi amaan ahaan uu ku tiirsan yahay ciidamada Itoobiya ee ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika iyo kuwa aan howlgalkaasi ku jirin ee Itoobiya kuwa soo sifo aan sharci ahayn ku jooga qaybo kamid ah dalka Soomaaliya ciidamadaas ayaa lagu eedeeyay in loo adeegsaday in ay gacan ka geysteen cidda ku soo baxda doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka koonfur galbeed madaxweynihii ugu horeeyay ee dawlad goboleedka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo midkii bedelay ee Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa lagu eedeeyay inay gacan ka helayeen ciidamada Itoobiya oo inta badan ku sugan gobolka Hiiraan agaasimihii hore ee madaxtooyada koonfur galbeed xilligii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan Ali Ibrahim Shami oo ay warbaahintu wax ka weydiisay joogitaanka ciidamada Itoobiya ee koonfur galbeed iyo waxa uu dheer arrimaha ammaanka ayaa ku dooday in ciidamada Itoobiya aanay gacan toos ah ku lahayn siyaasadda koonfur galbeed dhinac walba ha ahaatee balse markii isbedelka madaxtinimo ee dalka uu galay bartamihii sanadkan ayaa waxaa soo baxayay astaamo muujinaya in siyaasiyiinta koonfur galbeed ee mucaaradka ay doonayaan in ay markooda ka agdhowaadaan Itoobiya maalmo ka hor ayay ahayd markii uu madaxweynaha koonfur galbeed Cabdulcasiis Laftagreen socdaal ku tagay Itoobiya lana kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo kula kulmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka wada hadleen ayaa ahaa dhinaca ammaanka iyo maamulka koonfur galbeed sidii loogu sameyn lahaa ciidamo booliis ah oo Itoobiya u tababarto iyo ciidamo ka tirsan nabad sugidda waxay kaloo ka wada hadleen sidii ay uga wada hortagi lahaayeen ururka al-shabaab tan iyo markii lagu kala baxay doorashadii madaxtinimo ee Soomaaliya 15 bisha May waxaa dhanka kale soo baxayay in dhinacyadii ku kala aragti duwanaa musharaxiinta ku tartamayay doorashadaasi in ay si toos ah saameyn weyn ugu yeelatay madaxweyne Cabdulcasiis Laftagreen Sheekh Aadan Madoobe oo haatan ah gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa kamid ahaa xildhibaanadii laga soo doortay dawlad goboleedka koonfur galbeed walow uusan haddana ku jirin raggii uu sida gaarka ah xilkaasi ugu taageerayay madaxweynaha koonfur galbeed Laftagreen waxaana la sheegay in halkaasi ay jug culus oo siyaasadeed ka soo gaartay markii looga adkaaday musharaxii uu watay Laftagreen golaha baarlamaanka ee Soomaaliya loona doortay Aadan Madoobe Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo kamid ahaan jiray madaxdii sarsare ee ururka al-shabaab ayaa muddo ku dhow 4 sanadood waxa uu ku jiray xabsi guri waxaana gelisay dawladdii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mukhtaar Roobow Mansuur ayaa shaaciyay in uu ka qayb galayo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee lagu waday in la qabto bishii December 2018 isagoo bilaabay olole siyaasadeed oo xoog leh waana taas midda keentay xariga hogaamiyahan ruuxiga ah madaxweynaha haatan xilka loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu ka tirsanaa hogaamiyaashii mucaaradka waxa uu u ololeyn jiray siideynta Mukhtaar Roobow balse haatan oo uu hayo hoggaanka ugu sarreeya ee dalka ayaa Abu Mansuur waxa loo magacaabay wasiir buuxa waana wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliya waana taas arinta ugu weyn ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khilaaf xoogani soo kala dhaxdhigtay madaxweyne Cabdulcasiis Laftagreen ayaa siyaasad ahaan haatan u janjeera dhanka Itoobiya daawadayaal warbixintan waxa idin la socodsiinayay anigu Caawil Nurshira ah waxaanan idin soo gudbin doonaa warbixino kala duwan oo ku saabsan bal sida ay u socoto siyaasadda Soomaaliya iyo saameynta ay ku leeyihiin dalalka geeska Afrika iyo kuwa Carabta